xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga mudane maxamed cabdullaahi xasan nuux iyo dhammaan wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London. xafladaasi oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska ayaa iyagu soo dhaweeyay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga isla markaana kula dardaarmay inuu shaqadiisa u guto si daacad ah. anigoo ku hadlaaya dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan qaaliga ah ee loogu talagalay wasiirka Soomaaliyeed wasiirka isboortiga iyo dhalinyarada maxamed cabdullaahi xasan nuux. marka hore hilmaan hadal kuma jiro waxaan leeyahay waxaan u hambalyeynaa dawladda oo dhan oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Umar Abdirashiid Cali Sharmaarke oo soo dhisay dawlad xukuumad lana ansixiyay waana ku faraxsanahay haddii aan Soomaali nahayna waxaan leenahay tii hagaagto loo aayo dalka wax u tarto inuu Ilaahay ka dhigo. waxa aan codsi ama tala ahaan aan u leeyahay wasiirka yani sportska waxa kaliya isu keena ummadda Soomaaliyeed oo qabyaalada iyo wax walba kullu u diiday sababtoo ah garoonka balooniga maanta waa lagu ciyaaraya marka loo am sportska waa lagu ciyaaraya meel walba ha ahaatee dad isku reero ma tagaan waxa taga Soomaaliya oo dhan aa wada tagto ma aragtay maxaan ilaha mid meeshaas lagu xifaaltano oo lagu kaftamo oo lagu sheekaysto oo nin walba guri dad ka soo wada baxay 10 qaybood kala sidoo kale waxaan halkaan uga hambalyeynayaa xukuumadda cusub oo uu soo dhisay ra'iisul wasaare Umar Abdirashiid Cali Sharmaarke dhammaanteed waxaan leeyahay hambalyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan baarlamaanka ansixiyane waa mahadsan yihiin oo ayagana waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin. waxaan leeyahay soo dhawow wasiirkeena cusub maxamed cabdullaahi xuseen nuux soo dhaweyn kadib waxaa muuqata hubaal ah dadku inay u arkaan jagadan hadda uu qabto walaalkeen inay tahay jaga fudud laakiin miisaan ahaan iyo hawsha hortaala waa jagada ugu cusub oo kala ah. ilaahay ha kula fudeeyo ilaahay ha kaaga dhigo macnaha mid u fududaato hawshiisa. wasiirka cusub waxaan ku dardaarmayaa maadaama uu yahay shaqada loo dhiibay tahay dhalinyarada iyo sportiska magacii dhalinyarada aan ku hadlaynaa mudane wasiir waxaan ka codsanaynaa shaqadaada ugu horeysa tiirarkaaga siyaasadda in aad ku bilowdo midowga dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan oo aad dhistaa dallad ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku mideysan yihiin kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka joogana isku xirto. waxaan rabaa inaan iraahdo waa soo dhaweyno wasiirkii waa hadal wanaagsan laakiin ma nahay annagu dad wanaagsan oo wasiirka garab istaaga oo waxa uu u baahan yahay maalinta uu soo booqdo si kara oo oro kara wixii aad nooga baahnayd ee sporti waa naga kan sababtoo waxa leeyahay ninka wanaagsan wuxuu ka yimaadaa bulsho wanaagsan. wasiir kasta oo la soo magacaabo si kasta uu wanaagsan yahay haddaan bulshadeena Soomaaliyeed aan xunahay ma wanaagsanaanayo. marka hore waa inaan isku sheegnaa inaynu nahay bulsho wanaagsan oo dalkeeda iyo dadkeeda jecel si aanu u horumarno. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada isboortiga maxamed cabdullaahi xasan nuux. waxaan kula dardaarmayaa kaliya aniga isboortiga maanta waxa uu marayaa in loo shaqeeyo laakiin in laga shaqeysta waxaan umaleynaa xilligeeda in la soo dhaafo. waxaan aad iyo aad kula dardaarmayaa isboortiga maanta in wax badan laga bedelo oo dadka dhan ay u wada shaqeeyaan. Yuusuf Garabey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.